أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آية القرآن رب العزة سبحانه وتعالى waxa ugu horeeyo uu ku soo hadal qaaday waxay tahay in kaliya la caabudo asaga kaliya in la caabudo wax shirki ah ama wadaag aan inaan loo sameeynin wuxuu kale ku xijiyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayada quraanka waalidka in labada waalid hooyo iyo aaba ihsaan loo sameeyo ayada quraanka waxaan ka qaadanaynaa in waalidka arimaha waalidka iyo xuquuqda waalidka arin yar inaan ahayn ayaa ayada ka qaadanayna waqada rabbuka نبي محمد ربي وحو حكميي ألا تعبدوا إننا لعابدين إلا إياه إذك إننا عابدين إلا إساق ماهيني وبالوالدين لبدا والدنا إحسانا إنا إحسان الله سميه أيا إلهي سبحانه وتعالى وحكميي الكور آيات دي وروحي ليد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا تنوحي ليد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلهي إمي سجرون ماركتاي كدر دارمي هوي أبو إلهي وحلي إما يبلغن عندك الكبر هدي أكتين يكسو قاران أحدهما متكمت هوي أبو أو كلاهما أما اللبض فلا تقل لهما أف هولهن إري لبسنا ينهدهن فلا تقل لهما أف هدهن وحوايا لي الكلمات أتكو عنانا هوي أما كلمات أي لبسته وايا يا ليري إلهي مركا لحوير ولا تنهرهما هعناننا وقل لهما هوي آبا أدها قولا كريما هذا الوناك بدن أدها الله أكبر إلهي حولي واخفض لهما هوي آبا أرعي نبي محمد جناح الذل قرب مثل سماري تاي أدي مرين بدن نحريس وقل رب ارحمهما وقل له جناح الذل من الرحمة وقل واحد هذا نبي الله رب ارحمهما إله هوي أبونا حريسو كما ربياني صغيرا سيدا إيسو كوريين وإيسو برباريين أنيغو ير إله يحيي مركلي ووصينا الإنسان ابن آدم كوانو دردارني بوالديه لبدي سي والد أيان كلا دردارني محايا لي حملته هوي ويسو حنبارتي أمه هوي دي سالغاها اللايا وهنا على وهن ضعف لغدر ضعف هيكو سو قادي دب لدول ساري رفاض لدول ساري تبردرو لسو ساري أيما أركتاي كو قادتي وفصاله في عامين ناس قنتيسا إيو ما أركتاي انتي أساقا وحلو قبانا يو ناس كلاقا جريين لبساني نقطة يوري لاي أنا اشكر لي أنا إيقو شكريا آيادي هو وحال دهاي ولا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تن إلهي محولي أن اشكر لي ولوالديك أنا يقول شكري لو هذا والدنا كل شكري marka aayadaha oo dhan waxay ka hadlayaan waalidka kuwa kale oo aan soo qaadanayna way jiraan oo ka hadlay intaas aad nagu filan marka walaalayaal waalidka aayada quraan imisa looga hadlay quraan kariim wax la sheegi kara ma nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa su'aal la weydiiyay markaas lagu dhahay ayul amali ahabbu ila Allah ta'ala amal la qabta ilaahay ku ugu jeceliye markaas nabiga wuxuu yiri as-salatu ala waqtiha salaada oo waqtigeeda lagu tukado ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu jeceliyahay markaas la weydiiyo waxa la yiri thumma ay yaa ku xigo nabiga muxuu ku xijiyay maxaa amal saalix ah salaada waxa lagu xijiyay maxay tahay maxay kula noqon kartaa adiga dadka maanta wax kale moodaan laakiin nabiga wuxuu yiri birrul walidayn labada waalid oo ihsaan loo sameeyo oo baari loo noqdo ayaa ku xigta salaada waqtigeeda lagu tukado acmaasha ilaahay ugu jecel yahay waxa laba ah birrul walidayn waalidku baari loo noqdo qultu thumma ay maxaa ku xiga la yiraahdan markaas nabiga wuxuu yiri al jihadu fi sabilillah حتى هويا جهادك way ka fadli badantay baarinimada hooyo iyo aaba loo sameeyo jihadka way ka fadli badantay xaq ilaahay marka gudato xaq labaad oo lagu leeyahay oo waajibka kugu ah oo aan wax ban kale ta ma aragtay aad ka hormarin karin waa waalidka walaal sidoo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa saxaabi u yimid jaa rajulun ila rasuulillah faqala wuxuu yiri ya rasuul allah man ahqqu an-nas bihusni suhbati bihusni sahabati ina la saahibo saaxiibtinimadiisana aan wanaajiyo dadka ka igu xaqle dadka nabiga wuxuu yiri ummuka hooyada markaas la yiri yaa ku xiga markaas nabiga wuxuu yiri ummuka hooyada hadana yaa ku xiga la yiri markaas uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ummuka hooyada
culamada waxay dhaheen 3 jeer hooyo waxaa looga hormariyay aabo 3 umuur ama 3 arimood ayaa looga hormariyay hooyo aabo waxay tahay 3dan u hormar waxa waaye la yiri marka ugu horeyso lixamliha uurkeeda hooyo uurka ay qaaday ayaa looga hormariyay in aabo ma aragtay ay ka xaqnimo badato wali irdaaciha hooyo nuujinta ay ma aragtay nuujinaysa cunuga oo ma aragtay naasaha ay uu jiqaayo hooya iska leh kaalinta labaad waayo oo looga hormarsiiyay aabo waxaa 3 ayaa la yiri lixamliha waxaa ma aragtay waxaa 3 ayaa la yiri liwadciha dhalmada ayaa 3 lixamliha wali irdaaciha wali wadciha dhigida ay dhigayso ay dhalayso markii hore uurka ay ku qaaday iyo nuujinta ma aragtay labada sano ay nuujinayso 3 xaalo ayay aaba uga saramartay saxaabigi wuxuu yiri yaa rasuulallah yaa ku xigo markaas nabiga wuxuu yiri aabaha ayaa ku xigo ama abuuka aabaha ayaa ku xigo labada ma aragtay riwaayado way soo arooreen saaliyeed walaalayaal maanta dadka ma fahmayaan arinka maanta la isku haysto oo ma aragtay birrul waalidayn waanagana maanta aan ka hadlayno dadka agtarkooda ilaahay subhanahu wa ta'ala وما aragtay shaydaankii ayaa ka indhasaabay oo wax si fiican ma aragtay uma garanayaan nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam xadiis raqima anfu thumma raqima anfu thumma raqima anfu man 3 jeer uu yiri nabiga war qof baa dulloobay oo sankiisu ay ciida gaartay war qof baa dulloobay war qof baa dulloobay 3 jeer nabigu wuxuu yiri waa qofka waxa waaye man adraka abaway ruuxi aabiisi hooyadiisi ku soo gaara عند الكبر دعد وقتك دعد كسو غارا أحدهما أو كليهما لبضوض أما متكمد أنك سو غارا فلم يدخل الجنة هدانا لبضوض صوبتوض أنا الجنة كغليني ورما أنت نكا هو يدي سأنال أبيه سأنال نكا ما أنت كعاسي عاق لوالديه النغضة وقف اسكحر لبا الباب والجنة اسكحر واي قف كباري النغضة هو يأي أبو وقف laba albaab oo jannada furtay oo ay diyaar u yihiin waa qof noocaas nabiga wuxuu yiri xadiis culimada aktarkoodana ay dhaawad waa daciif laakiin daciifnimadiisa oo ma aragtay lagu qaadan karo wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu salaam al jannatu tahta aqdaami al ummahat jannada way taala labada lug ee hooyo ay hoos taala jannada ka warama wallahi maanta jannada meel kale laga raadinaya wallahi nin hooyadiisii caasiyay aabihiisi caasiyay halkuu wax kale khayr ma gaaray adduunyada dusheeda aakhirana iska badaaba salaaliyeed walaalayaal waxaan laga doonayaa in hooyay aaba aan baari u sameeyno dadka waxaan u dardaarmaynaa nool hooyo iyo aabana ay u nool yihiin inay dadaalaan oo wixii hore iska iloobaan oo klibkan iyo videogan iyo maqalkan markay maqlaan waa hadal ilaahay waa hadal rasuul ha fiirinin meesha lagu dhahay iyo goorti la dhahay iyo waqtiga la dhahay ee waxaad fiirisaa yaa iskale kalaamkan rasuulka iskale yaa kan kale ta ka weyn leh allah subhanahu wa ta'ala ina qaadatana way kugu qasban tahay hooyada baari u noqo aabaha baari u noqo inta ay nool yihiin ayaa jaanis haysataa istaqil wujudahuma intay joogan ka faa'iideyso inta ay joogan ka faa'iideyso inta ay joogan ka faa'iideyso kuwa ay ka dhinteen waalidiintooda waxaan leenahay waxaad u sameysaan u duceeya hooyo iyo aabo ducada u badiya oo khayr badan ma aragtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala u weydiiya